عليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول رب العزة جل في علاه: waxaa inoo bilaabatay suuraddii 108 magaceeda waxaa la yidhaha suuratulkawthar. iyaduna waa maki, waxay ka mid tahay suuradaha soo degay intii rasuulka calayhi salaatu wasalaam maka gudaheeda uu ku noolaa. aayadaheedu waa 3. siday u hadashay suuratu kawthar laba meelood bay taabatay. midi waxay ka hadashay ilaah galladu weyn oo uu nabigiisa calayhi salaatu wasalaam ku galladaystay oo khayr tirada ka badan ilaah uu siiyey, mid adduunya mid aakhira labadaba leh. haddaad ka bilowdid nubuwadii, nabi baa laga dhigay oo kitaab qur-aanaa lagu soo dejiyey oo xigmiya murtibaa alla ka buuxiyey oo aqoon iyo macrifa alla u furay oo ilaahay iyo addoomuhu u kala akhyaarayn doonaa shafaacatul-cudmaa baa alla siiyey oo darka kan la sheegi doono oo aynu tilmaami doono ayaa rabbi siiye ummaddiisa cabbayso oo maqaama almaxmuud meel dunidoo dhan ama caalamka oo dhan uu ku mahadin doono, iyo kasratul atbaac ummadda isaga raacdee rumaysay tiro intay la eg tahay ma jirta nabi ay rumaysay ama gargaariddii guusha laga siiyey wixii cadowa ee uu la dagaalamayo dhan, futuuxaadkii dhama ee dal walba loo furo dunida uu qabsaday, khayrka aan la tirin karin baa la siiyey. kolkaa khayrkaa weyn ee rabbi rasuulkiisa uu ku galladaystay ee mid adduun iyo mid aakhiraba leh, mid dunuwi ah iyo mid diini aba leh, khayrkaas suuraddu way taabatay. waxayna warkeeda ku gebagabaysay bishaaro weyn oo rasuulka loogu bishaareeyey calayhi salaatu wasalaam. waxa isaga ka soo horjeeday cadowga in duf ku baxayo bale ku dhacayso, ina shaani'aka huwa al-abtar. wax alla wixii ku carogeliya oo cadow kugu ah oo kaa dhan oo kaa soo horjeeda dulli iyo foolxumaa ku dhacaysa. bishaaradoosaa weyn ayaa isaga la siiyey. sababkuna wuxuu ahaa rasuulka inuu dhintay calayhi salaatu wasalaam. wiil isaga uu dhalo qaasim la odhan jiray ayaa dhintay. geeridii wiilkoo cusub baa la maqlay. kolkaa qurayshtu wax kale kuma sheekaysan jirin, isaga rasuulkaa ayay ku sheekaysan jireen. kolkaasaa wiilkii geeridiisii timid. caas ibni waa'il nin la yidhaah oo rag yaab loo dhalay. camr ibni alcaas buu dhaloo saxaabi jaliila, ninkii masar furay. camarkaa wuxuu dhalay cabdullaahi ibni camar oo ahaa asxaabta ninka ugu xadiis badnaa ee abu hurayre ka qaaday buu ahaa. abu hurayraa yidhi anigu waan xifdin jiray, isna waa uu dhigi jiray, sidaa daraaddeed buu dheeraad iga yeeshay. kolka cabdullaahi ibni camr ibni alcaas caas ibni waa'il wey mujrimiintii waaweyneed ee quraysh buu ka mid ahaa. kolkii rasuulka lasoo hadal qaaday geeridii wiilkan ay cusub tahay yuu yidhi war ninkaa miskiinka ee gablankaa ma iska daysaa. isagii baaba gablan oo tirtirmay oon waxba haysan. kolkaa isagoo dhintay wixiisuba ku egyihiin way iska baaba'ayaan. maxaad u qiimaynaysaan ninkaa miskiinka ee gablankaa wuxuu wadwato wey. isaga markaa carruur baa u joogtay. kolkaasaa rasuulka tii ka xumaaday calayhi salaatu wasalaam. kolkaa rasuulka wax ka tiran iyo farac badan ma leh oo ummaddii oo dhan wax ku abtirsada. taa wuuba ka maarmo, wuxuu uga maarmay ummaddoo dhan buuba waalid u yahay. wasadaqa allahu id yaquul annabiyu awlaa bilmu'miniin min anfusihim waaswaajuhu ummahaatuhum. oo kolkaa ilaa yawmi alqiyaama inta rumayseen raacday ee khayrka ku xusaysa ee cawiya maalin ku sallinaysa ee markay rabbi sheegaanba sheegaya, aadaankii baa lagu daray oo aqimidii baa lagu daray oo salaadii baa lagu daray oo khudbooyinkii baa lagu daray oo shahaadii baa lagu daray. kolkaa meel walba khayr lagu xusaayuu noqday. kolkaasaa isagana bishaaradaa loo sheegay oo la yidhi waxan uu wax moodaayo waad ka dhan tahay adiga. isagiina dabargo loo sheegay ina shaani'aka huwa al-abtar. labadaa qodob bay suuraddu ka hadashay iyadii oo bilaabatay. waatana bismi illaahi araxmaani iraxiim. abda-u haadihi suura, waxaan suuraddan ku bilaabayaa bismillah alla magicii uskashadii allihii arraxmaan naxariis guuda addoommada wada gaarta naxariista, arraxiim mid gaar ahaaneed naxariista wey. qaala tacaala rabbi wuxuu yidhi ina annaga eebbaah waa tawkiid yaab leh, maxalal qasam bay taagan tahay. ayaa acdaynaaka ku siinay nuunulcadamati waalkibriyaa wey. annaga marka rabbi leeyahay subxaanahu caza wajalla alcadamatu waalkibriya baa lilaahi u sugnaatay. wuxuu isku daraayo oo wax lale ma leh.
إنا أنك إباوي عظمة إيا كبرية إيا شرف إيا قيمي كلنا إسكاله أي أعطيناك كسيني سنعطيك لما أوران كلك وافعل ما لبا لغا عبري وحو إني واحد دون إيا واحد آخر بليهين وحو مركا قعانت كوهي إيا واحد من بإني جيران باللبدا بالله تلمامي إنا أنك إبا أي أعطيناك كسيني الكوثر كوثر بانو كسيني كوثر كالبا تفسير بوليه مذي وحاوي حديث صحيحة أيابا كاكوسو أروري حديث كإمام الترمذي باوريي رسولك عليه الصلاة والسلام إنه يروى نهر في الجنة كوثر ككل وبي جنة قده هذا كيالا حافتاهم من ذهب لبدي سقبي ذهب بيكسم سنيهين ومجراه على الدر والياقوت ما شبيه سيعاني تايكو جيران قدها أنا جوهر بوكسم سنيهي تربته أطيب من المسك عموديس كود قول وحا أذيك لو يقان أودم وماؤه أحلى من العسل بيهيس كما عن ملبك وأبيض من الثلج برفكنا وكعديهين من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا قفك مركع بانا مرلبات مؤومه كوبابك قارركي سيالانا عدد النجوم بوليقيهي كوبابك قارركي سيال إرك حديها كيال بيتر الليقيهين isaga intuu leegyahay ma yara waxaa rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam markaa madiinuu joogay ilaa wuxuu leegyahay sancaa buu yidhi waa bil ka badan inta loo socdo kolka taasaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam niman tafsiirkaasay qabsadeen cabdullaahi ibnu cabbaasna wuxuu leeyahay waa alkhayru lkasiir oo carabtu ficilku katarawey laakiin habkan loo bineeyey kawthar lagu keenay mubaalaquu ku tusinaya kolka wixii oo dhan baa guda galaya kolka waxa ashmalsan tafsiirka cabdullaahi ibnu cabbaas oo inaa acdaynaaka waxaanu ku siinay alkawthara khayr badan ama alkawthara webigaa la yaqaan markaa tafsiirka cabdullaahi ibnu cabbaas ku fasirtid webigii isaga ahaa qayb kamiduu noqonayo soo dhex gelaya khayr badan oo webigaa kamid yahay oy nabinimadu kamid tahay oy risaaladu kamid tahay oo shafaacadu kamid tahay oo maqaam maxamuud kamid tahay oo gargaarkan adowga ka heshay dabaylaha laguugu gargaaray حتى وحن إذن لو ذاقين باجرتا وحصل وخير كثيرا وإبا كسيو إن أنك إبا أي أعطيناك كسيني الكوثر خير بدن بانو كسيني وكمدياي تقى جنة قده هذا كيال إبيها معان كل هذا أنك كسيني فصليتك لربك ربك أوتك وانحر ربك درتي وحب له وقوة كالمشركين تا أصنام عابد أيان مركز وهو أيان oy gaararkeeda tuban yihiin ama intay xoolaha beeyaan bay dhiigga ku daadin jireen adigu waxba iyaga warkooda kama qoyna adigu rabbigaa keliyeeta u duko oo rabbigaa daraaddii wax u gowrac wey oo adiga camalkaad samaynayso ha noqdo mid rabbi keliyeeta u jeeda wasadaqa allahu id yaquul qul ina salaatii wa nusuki wamaxyaaya wamamaatii lilah laa shariika lah isaga keliyaa leh cidna lama wadaagto wey kolkaa fasalli waxaad u tukataa lirabbika keliyeeta وانحر واحد وحبريسا لربك كليته وحا مفسرين تقاركو شيئا فصلي داش إنه تاي صلاة عرفة التي كذوي وصلاة عيد الأضحى وانحرنا وحوليه اللي قورعي مال انت عيد داوي فصلي لربك ربك أوتك وانحر ربك وحو قورع نحرق قيلو تلمامايا ومن أشرف أموال العرب كل كان ذبحي لوضا إيا أريقا قورعود ذبحي بالليلة لكن نحرق وقيلة معناها وحوي geela oo xoolihii markii la dhaqanayay ugu qiimi badna isaga markaad biraynaysid alla dartii u birow sidaa markii rasuulka la amray oo shukran lillahi tacaala aad alla ku mahadinayso ayaad adiga camalkaaga marka ay mushrikiinta asnaamtiiyo dhagaxyaalkaa wax u jeediyaan adigu alla wax u jeedi wey oo salaadaada iyo gowracaaga iyo hawlahaagoo dhan dhanka aadi wey markaasaa rabbi yidhi subxaanah ina shaani'aka kan ku carageliyey ee yidhi waa gablan iyo waxa هو إساق أيا الأبتر خير جدقي كقوان وحبا خير كماله ولو عفوري أجوكتو إساق خير برتي وحكولا هاي أذيقوس خير أدن بابدو أيالو تهيو خير أولان يسرف جدقي أيالو تهي إن شانياك كنكو عرقلي هو كاسا الأبتر خير دمانتي ميت كقوايا وخير وحبا كولا هاي سيديبونا كل انتيو